kadib markii dhawaan la baahiyay muuqaalo la xiriira dhaawaca iyo xanuunka muddo 14 sano la soo dirsay hooyo cibaado oo kamid ah hooyooyinka danyarta ku nool magaalada Boorama ayaa waxa deeq lacag ah oo ay soo bixiyeen dhalinyaro qurbo joog oo ku nool dalka dibadiisa maanta lagu soo hagaajiyay wariye Maxamed Dabshid oo kamid ah wariyaasha magaalada Boorama kaasi oo deeqdaasi lacagta loo soo wakiishay si rasmi ah ugu wareejiyay mas'uuliyiinta ururka samafalka ee Tawfiiq ayaa waxa maanta deeqdaasi si rasmi ah loo gaarsiiyay hooyo cibaado oo muddo 14 sano ka kicila qaybta hoose ee jirka waxana deeqdaasi si rasmi ah maanta loogu wareejiyay gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq Maama Basra Jirdashiil oo deeqdaasi gaarsiisay hooyo cibaado oo ahayd hooyadii danyarta ahayd ee deeqdaasi loogu talagalay waxana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wariye Maxamed Dabshid oo ahaa wakiilkii deeqdan lacagta loo soo wakiishay inagoo ku jirna maalmihii u dambeeyay ugu khayrka badnaa bisha barakeysan ee Ramadaan tobankii u dambeeyay waxa maanta Ilaahay fadligiisa inoo suurta gashay in aynu soo gaarsiino ururka samafalka ee Tawfiiq deeq lacaga oo ay inagu soo saacideen si aan walaasheen ugu saacidno dhalinyar uu hogaaminayo Guuleed Cabdiraxmaan Muumin oo kamid ah qurbay joogta dalka Mareykanka isagoo sheegay waliba in uu dadaal ugu jiro sidii uu hooyadaasi xaaladaha caafimaad ee kala duwan ay haystaan in hore uga baahinay media in uu garab istaagayaan intii awoodooda ah Ilaahay khayrka ugu daro bisha barakeysan fadligiisana Ilaahay ha ku casuumay namada maalmaha ay leeyihiin baahiya waaweyn ee adduunkii aakhiraba waxaan Ilaahay mahdiya in aan soo gaarsiiyay amaanadii hooyo Basra intaasi kadibna Maama Basra Jirdashiil oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa u mahad celisay cid kasta oo soo bixisay deeqdani iyadoona bulshada ka codsatay in wali la soo caawiyo hooyadan danyarta sidoo sheegay wariye Maxamed Dabshid waxa lagu soo hagaajiyay $300 oo ay ku soo hagaajiyeen inama saaxiibadiya $300 anagu nagu soo wareejiyay anaguna cibaado oo loo soo diro lagu soo caawiyay iyaan ku wareejinay Ilaahay waxaan uga baryayaa sida uu sheegay wariyuhu waa tobankii dambaynu galay ee bisha Ramadaan ugu barakada badnaa ee Ilaahay la weydiisanaya inuu qooraheena naarta ka xoreeyo Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu muslim oo dhanba waafajiyo inay cibaadaystaan oo Rabbi caabudaan oo qoorteena dhammaan naarta laga xoreeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idin weydiisanaynaa inaad hooyada ma taqaana 13 sano u ildaran xanuunka curyaannimada sonkorta dhiikarka jirkeediyo isbedelayad hore shaashada uga aragteen dibna uga arki doontaan biidnillaahi raxmaan guriga loo dhisayo oo la yiri lacagtiisii barbaa la hayaa barka labaad inaad Ilaahay dartii ugu soo gargaartaan oo guriga u dhamayno Ilaahayna ina waafajiyo ina gaarsiiyo iyadoo gurigeeda dhex fariisatay biidnillaahi raxmaan jasaakumullahu khayran khayral jasaa dhamaantiinba gaar ahaan inamada lacagta degdega ah soo diray waxaan idin leeyahay hooyo halkaad ka soo saarteen wax ka khayr badan Allah idinku bedelo ugu dambeyntiina maamada danyarta ayaa u mahad celisay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay deeqdan maanta lacagta la gaarsiiyay alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooyo waan idin soo duceynayaa ma sha Allah jasaallahukum khayr halkaad ka soo saarteen wax khayr badan Allah idin geliyo anigana Ilaahay ha ii barakeeyo aad baan idin salaamayaa hooyo ma sha Allah tabaarakallah jasaallahukum khayr